أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الغرفة المباركة أن يجمعنا في دار كرامته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يغفر لنا جميعا. وعشر كاني صحيح على الآداب الإسلامية لشيخ وحيد ابن عبد السلام البالي، وحان مريني آداب الشراب شلي وحين ودن بيسي آداب الشراب أما آدابتا إي نظامك إسلامك ونوجديي اللو عبو عبتانك أيان مريني. قضبكي تطواد بان أرقني أو أها عدم الشرب في فم السقاء، قبك إن معناها ويلك لغا ودا عبو أبك أوسن سارنين ولو ديهي. قضبك سيديدادي عاو 10 كان وكب اللاباني وحويان إذا شرب قفك هديء عبو إنو أعضى سيو الإناء كوبكي أما ويلكي من على يمينه، عند مركاسي يمينتي سأما ملك تسجوكته إلا سيوي. سيدي حديث الصحيحين كسغا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك حليها حلبت وحلال لسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولك عليه الصلاة والسلام وحلال لسي يعني شاط ربا الله لسي داجن إرمان، وهي في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دار أنس بن مالك بريسا جوكتي أيا الله لسي، وشيب لبنها بماء. وحكوا لي هذا يعني معناها شاة داجن ريدا مارتي داجن كأه. حكوا لي هذا في إرمان ولكن عانير عانه هذا آل ويريهين أيا اللي يرى هذا. وهي في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دارت أنس بن مالك أي نريد الجوكتي، وشيبة وحالو الدري لبنها عانهذي وحالو بحي بماء بيو من البير عالك لغاك يعني التي في دار أنس. عالكاسنة عالك أنس قرقودة أيو كيا لعالك أسقع، يعني أنس قرقودة أيو عالك أسكيا لي. وهي فأعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام أيا لسيي
alqadaxa weelkii caanaha ku jireen fa shariba wuu cabay minhu weelkii xataa idaa nazaca alqadaxa ilaa uu markaasi ka soo siibay oo macnaha uu ka leexiyey weelkii min fiihi afkiisa wa calaa yasaarihi midigtiisa yani bidixdiisa waxaa fadhiya abuu bakr ayaa fadhiya wa can yamiinihi midigtiisana waxaa fadhiya nabi sal slam acraabiyun reer baadiye bidix ayaa ka fadhiya abuu bakr midigna ayaa ka fadhiya nin reer baadiye ah faqaala cumar baa markaa wuxuu yidhi wakhaafa an yucdiyahu alacraabiy waxaan ka baqay inuu ninka reer baadiyaha uu siiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa eri buu yidhi acdi abaa bakr yaa rasuula allah abubakr nabi maxamed abubakar u dhiib weelka oo midigtaada jooga macnaha bidixdaada jooga markaasuu intusaa u fiiriyey midignayaa ka jooga reer baadiyihii fa acdaahu alacraabiy ninkii reer baadiyaha ayuu siiyey alladii calaa yamiinihi midigtiisa fadhiyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi nabi sal slam alaymana faalayman halkaa midigta waa in laga wado cidda markaa midigta kuu soo jirta kan kale midigta ku jira yani kasii jira halkaa waa inay sheekada ku socoto waa nidaam baa la barayaa yacni maaragtay qof fadli badan halkaa ha fadhiyo qof yani laga fadli badan yahay halkaa ha fadhiyo mushkilad ma lahan laakiin sharciga siduu kuu amrayo iyo cadaaladda waa in mar walba lagu socdo way marka nabig alayh isalaatu wasalaam abubakar uma uusan yani maaragtay hurin caanihii ma siinin maadaama uu u fadli badnaa wax meesha fadhiya laakiin reer baadiyaha kan meesha fadhiya ayuu siiyey nabiga calayhi isalaatu wasalaam maxaa yeelay nidaamka islaamka cadaaladda ay ku jirto ayaa sidaas ah alaymana falayman sidaa daraaddeed markii meel isugu yimaado oo raashin la qaybinayo waxaa fiican in midigta laga wado haddii maaragtay wax la qaybinayo in midigta laga wado sida haddii la salaamayo in midigta laga wado marka tayamanuu bi nabi calayhi isalaatu wasalaam midigaysigu waa arrin aada u fiican waayahay qodobka sagaalaad waa cadamu shurbi inuusan qof ka cabin fii aaniyati dahabi weel dahaba inuusan ku cabin waalfidati iyo weel qalina inuusan ku cabin weelka dahabka ah iyo weelka fidada ah laguma ogola inaad wax ku cabtid saxiixeenka waxaa ku yimid can xudayfata radia allahu tacaala canhu ardaa inuu yidhi samictu الnabiya salى allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ka maqlay oo yaquulu leh laa talbasu alxariira xariirta ha ku labisanina wala diibaaja waa nooc xariirta ka mida way ha ku labisanina walaa tashrabu ha ku cabina fii aaniyati dahabi koobabka maaragtay dahabka laga sameeyey iyo walfidati iyo qalinka laga sameeyey walaa ta'kuluu fii sixaafiha xeerooyinka laga sameeyey iyo saxmada dahabka laga sameeyey iyo maaragtay muxuu ahaa qalinka laga sameeyeyna ha ku cabina fa innahaa lahum fi ddunyaa gaaladaa iskale adduunyada ku leh inay ku raaxaystaan walanaa fi alaakhira annagana ilaahay jannada nagu siinayaa wy nabiga calayhi salaatu wasalaam marka sidaa daraaddeed wixii ayaga adduunya lagu siiyey gaar bay u tahay faraha ka qaada idinkuna hadhow baad ku raaxaysan doonaane ku raaxaysan doontaane taa dambe ha iska kharibina buy nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed marka yacni restaurantiyada iyo maaragtay meelaha qaarkood oo aadka qaaliga u ah silver weerkooda ama waxyaabaha ay wax ku cunaan qaadooyinka iyo waxyaabaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay micnaha maaragtay qalin qaali ah ka samaysan yihiin iyo inay dahab ka samaysan yihiin waa suurtagal way waana jirtaa hadday jirtay waagaas nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam hadda iskaba dhaaf oo wax kasta la samaysan karo way jirtaa marka maadaama ay saa tahay qaado dahab aan ku cunay wax iyo koob dahab wax ku cabay ama koob qalina wax ku cabay waxba kuu tari mayso waa uun micnaha shay lagaa reebay oo xaaraamah ayaad ku dhacday ee iska ilaali way marka aadaabtii cabitaanka maxaa ka mid ah in weelashaa laisu diiday qofka inuusan waxba ka cabin qodobka tobnaad waa maxay saaqi lqowm dadka qofka waraabinaya waa aakhiruhum shurban kan u dambeeya wax cabaya wey haddaad wax teelaysid oo cunto bixinaysid oo dad siinaysid iyo cabitaan waa inaad noqotaa qofka u dambeeya wax cabba nidaamkaa sidaas ah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi xadiidka asaga ah oo yidhi saaqi lqowmi aakhiruhum shurban waa xadiid saxiix muslim ku sugan yacni kan dadka waraabinaya isagaa ayaa ah qofka u dambeeya ma jeedaa
يعني soomaalida waxay tiraahdaa ninka macnaha qaybiye ama wuu qadaa ama maxay yani wuu quud weynaadaa saa u bedel quudkiisa bata oo waxa weeye maaragtay raashin fiican buu wax ku dhuftaa usoo hara mise wuu qadaayo meeshii dhan buu ka qadaa marka sidaa daraadeed qofka inuu wax bixiyo kan wax bixinayana inuu ahaado qofka u dambeeya wax cabaya qodobka 11 waxa weeye taqdiyatu al-aaniyati 'inda an-nawm waa qodob aad iyo aad muhiim u ah si fiican inaad u dhageysano wey in la daboolo weelasha marka la seexanayo xataa haddaad dawa afgembi haddaa ku sameeyo موجودة وحلا قد قال لما يوام حي نوسى عليه السلام علب قال بو كشيء دونا حديث كلام نقول ما عندنا وحوي هبينكي سمكي وحجرته هلا بين وباء وصدق عذر بصدق عذر كاسي مركو حي نوسى عليه السلام ويل في هذا المجره إلا وقليا أبو نوسى عليه السلام ويل في هذا المجره إلا وقليا مركا وعرفت سمكي وحالك سان إن هل مر عذر إيمانه أو ضدك أي وضع قبان أو اللي ما عرفت محوها محوها هرقب أما فلو أما وحوى عذر نوع كلاس كإيمانية أما وحبا دعدانية موجودة ضدك لما عذر أيها أو قاب يعني كود السمين وسكوب دهرانية وكلا أيها قوة ضعية موجودة مركا سي مركا تاسي لسجد دفاعه أو قفكي بارتي عذر كاسي الله سبحانه وتعالى نقول إلى عليه لسجد دفاعه وحير مكا ويالشيننا هلا الضبورة قابكي ونصيني النبي عليه الصلاة والسلام ليل الله صحيحين كوحا كسوا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ورنا إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام حيري خمروا الآنية خمروا بمعنى وامحي دبولة مرة لغد دبوليا وخمارك قفكم مدح يكون دبولة سماه مركا خمروا بمعنى وحويان دبولة الآنية ويلاش سحمدة إيو الدكسية إيو باقولية إيو كل حل الدبولة النبي عليه الصلاة والسلام وأوكو يعني هنا الأفحر الأسقية ويلاش وحلو عبه أشونك إيو سبرارك يعني دمارة بيها لقى عبه أفكها لقى حرو موجود أفك كحرة أوكو وحويان ويعني مارة محوها وأفحرد وأجيفوا يعني قفشة الأبواب هبينكي معناها البابلة هبينكي مكلا الساحانة أيوه أي أنت أنا دعيسة مركا الساحانة يسيب وأنا ولش دوشة وأنا هذا وحيابي وحلو عبينا أد محوها أسقيدي ولش بيها لقى عبي كل عبينا إلا الدبولوي مركا سبحانه عليه الصلاة والسلام وأجيفوا الأبواب البابلة حل حرطو الباقي والفرع ده ساحة الوامحة توجي بسوق ليه بهالله بسوق ليه ودواقي بسوق وحياة ربنا مسكي بسوق ليه واساس بنا نوسع سلف الباب الحرطة وأكفتوا وحان علسان مجد أقريها كعلسان سبيانكم المهينة عند العشاء المغرب كما كانت يعني المغرب كما كانت راح دعوه الباب بدأ المه قدها للجلالي نوسع سلف صوت وامحي مغرب كما كان لقاره فإن للجن جن وحاوها تساعة داسي انتشارا فافد وصوف فافيه إياه وخطفة إياه مارة محوها وحينو نرباحه وحينو دلو وحينو مارة مره وحينو مارة وحيال ليه وهكذا مغرب كلا مصر سعوده مغرب كلا المها مارة خاسان المهوي المها بنانك إنا كو عياران أو بنمران مغرب كلا وإن لقى إلى عليوي وإنو قلها كجرانوي ديك بلين جران جوغان مغرب كلا قلها لقليوي صوته الشاهدين تبا ياعصة وهبين كان ربطا إنا واحد بس هادسو وما تدن نسانيسي وعاورا شقيسانيسا مركب وحسمينيسان وحسمينيان اسبشر المها وحويان وحيالينيان وحير بك النبي عليه الصلاة والسلام هبينك مركب ساحانيسان وأطفئوا دمية هل الدميو المصابيح فاينوست هل الدميو عند الرقادي مركب ساحانيسان يعني جيف مركب دي لقاره افتين كده الله وضعنا اسكسي أحد النبي صلى الله عليه وسلم محايا لي ويقول فإن الفويسقة يعني جيركة وفاسقوي فويسقة سيئة الله جيركة ربما اجترت وحاليها وإن سوجيده الفتيلة يعني بالك مارة محوها لبابدة باش مقرنة سمارة إن فانوستا باش غير قاسك كجرت أما حرق يذبا إن أنت سوجيده أي صورة قلعة أو فاحترقت أهل البيت وقول لها سنة إيقبته
ayaa suurtagal nabiga calayhi salaatu wasalaam waa waxyaabo la yaab leh suubanaha sal slam 1400 oo sano ka hor ayuu arrinkan noo sheegaya waana wax xaqiiqo ah jira in macnaha yani dadka weelasha is daboolin hadda isweydiiya gabdhaha meesha ku jira noo jeedaa yani inteebaa weelashooda daboosha oo habeenkii yani saxanka gambisa ama baaquliga daboosha ama yani mujeda inteebaa koobabkooda xera waa number yar wey inteebaa digsiyo banaanka yaala afkiisa furan ka tagta waa number wey inta xirtana waa number yar wey haddii loo fiiriyo albaabada in la xero wey albaabkiiyo furan in laga tegin ma fiicna waxaa kale ilmaha inaydan sii deynin maqribkii waa in la hayo wey ilaa intee la haynaya hal saac oo kale markuu maqribka dumo haddii la sii daayo waa okay ilmahaas haddii iska fiidsadaan waa okay weyaan faynuuskoo kale faynuuska kani waa faynuuska markaasi jiirka uu wax ka tari karo faynuusyadoodii hore waxay iska ahaayeen faynuusyo maaragtay liifadda ay xaggaas ka taalo oo dhala ku daboolneen oo waxba ku daboolneen oo maaragtay muxuu ahaa yani jiirka intuu saa u dabagediyo ayaa maxaa dhici jirtay in muxuu ahaa gaaska intuu daabto kadibna dabkii uu qabsado guriga dham ay u gubto saasaa dhici jirtay marka hadda ka hora reer dhasaa ku gubtay magaalada madiina وروى البخاري في صحيحه وحكوك يا بخاري رحمه الله تعالى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام حيري إذا استنجى الليل هديها بينك إذا استنجح له إذا استجنح هدي وهبينك اسكزو الدمو وهبينك وقت يسلقاره أو سو قابله أو قال جنح الليل هبينك قربك سور هدي لقاره فكفوا سبيانكم المهنة هايستا قولوا كو هايستا جوجينا برانك آدم قولها سوق قليا فإن الشياطين محايا للشياطين تنتشر ويفافتاه حين ايد المركع يضع حلقاس شياطين ويصوف افتاه ويصوف احذاه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ذهب هديه اتقه ساعة من العشاء هبينكي يعني هديه ساعات كتكتو oo maqribka waqtigiisa la dhaafo oo qoraxdii markaasi ay intay sibca u dunto oo markaasi habeenkii madowgiisa la gaaro oo 8 ama 7 meelahaas la gaaro qoraxda ku dhaca si fiican wuxuu yidhi faqalluuhum farax ka qaada wuxuu yidhi nabi sallam waagliq xer oo dabool oo macnaha muxuu ahaa qufulo baabaka albaabkaaga marka albaabka xiraysidna wadkur isma allah bismi illaahi dheh hadda marka albaabka xirayna sub maalinta habeenkii anagoo gabgable ma iska xirnaa soomaha albaabka habeenkii markaa xiraysid bismi illaahi dheh وكذا الوجدي حديث البخاري وحيره وأطفئ مصباحك فينوس هذا الدم واذكر اسم الله مركز الدمين سيدنا بسم الله إليه أو أخوف الزمسي وحي كده أنت هاي نلقى بيك مكان الدمين أيوه نلقى في الدمين سيد بسم الله سي بسم الله تتر هذه نلقى لك سي وأوكي سقاءك وحاد أفحرتا ويلك بيها أتكعبتد مجدا واذكر اسم الله سيدوك بسم الله ده الله ويلش الدبولية بسم الله ده وخمر وحاد يعني دبوشا إناءك ويلكاga واذكر اسم الله بسم الله هنا له ولو تعرض عليه شيئا هدي بركة ويلكي لو يكور وحن كنت دبوله بقول وين هذا ماشي سكيال وحبا كل جيران وحنا قد دبوله ماله مع سمين نساء ولو تعرض عليه شيئا يعني الشيء سوقات أفك كسار هذا يدير أفك كسار يعني قول دير سوقات أفك كسار شيء رمار تسا قدبان قاد أفك كسار وحن سا كسار مركا الشيء قاد قدبان أفك كسار لو قصاري وعرفت أن الله سمي سوماها وحوينو عليه مالهن هذا قف حيان يستيراهدو شيء قاد لصاري جيسي وحق لك ران محاد عاي لكن الشيء قاد أساقع لصاريه حكمت باكو جرتو النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه الشيء سا قدب شيء قاد قدب تي وحبوك الدفاعية وحبوها كالدفاعية وي واسداس ويان سيحانك وحكوي مثلوك لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه انه يري جاء ابو حميد بقدح وحو كاني منك لي ابو حميد بقدح من لبن والعانه كجو ايو كاني من النقيع يعني مارة محوها ان حبينكي
caano maaragtay muxuu xiskida uu soo lisbuu keenay. qaala lahu rasuulu llahi sal nabi calayhi salatu wasalaam wuxuu ku yidhi alaa khamartahu maxaad u dabooli weysay walow an tucrada calayhi cuudan yacni aadba maaragtay qori yar kor ka saartide maxaa u dabooli weysay caanahaas buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. waa saas way marka shayga in maaragtay muxuu ahaa la af daboolo ama maro la saaro ama la af xero haddii wax kale loo waayo ul yar saa dhag loogu siiyo korkeeda ama maaragtay muxuu ahaa la saaro idan taasi waxay ka difaacaysaa cudurkii ku dhici lahaa. waxyaabahan ku dhacayana waa maxay? nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka warramaya can jaabir ibni cabdillah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yani jaabir wuxuu leeyahay samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ka maqlay oo yaquulu leh gabdu linaa'a war weelashii daboola wa awka'u siqaa'a waxaad wax ku cabbaysaan iyo cabbitaanadana af xera fa ina ftii sanadka marka la gaaro macnaa sanadkii dhexdiisa laylatan habeen baa jira habeenkaasoo yanzilu wabaa'un habeenkaa isaga ah cudur baa soo degay sanadkii habeen ka mid ah ayaa cudur soo degaa yacni bacteria iyo virus iyo waxbaa soo degaya walaa yamuru biinaa'in bacteriyadaas ama viruska isaga cudurkaasi ma soo maro biinaa'in weel laysa calayhi ghidaa'un aanan daboolnayn aw siqaa'in ama mid ma aragtay muxuu ah biyo laga cabo aan daboolnayn laysa calayhi wikaa'un aanan markaasi afxir korkiisa kaga xirnayn ilaa nazala fiihi cudurka asaga wuu gelaya min isaga ah wuu dhex gelayaa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkana muslim baa soo saaray. marka yacni for your safety caafimaadkaaga iyo safekaaga iyo qofka inuu maaragtay muxuu ahaa well-being yani inuu caafimaad qabo xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddaasi si jamaca ayuu qaab caafimaad hataa ugu sheegay preventionka iyo protectionka qofka macnaha inuu isprotect gareeyo iyo inuu maaragtay wax kasii hortago waxay ka fiican tahay waxa la yidhaahdo muxuu ahaa maaragtay daaweynta ayay ka fiican tahay. lidaalika marka nabiga calayhi salaatu wasalaam bulshadii buu barayaa qaabkii ay caafimaad ahaan nadaafadda u ilaashan lahaayeen mawjada albaabada in la xiro faynuusyadii ama nalalkii la iska damiyo muxuu ahaa maaragtay weelashii la af xero bismillaahi lagu wada xero kulligood bismillaahi in lagu seexdo alxamdulillah lagu soo tooso hawsha halkaa ka socoto ilaahayna subxaanahu wa tacala marka qofkaas wuu ilaalinayaa. waa sidaas weeyaan. qodobka u dambeeya ee 12aad waa alxamdu fii aakhirihi qofka inuu alxamdu lilah yidhaahdo cabitaanka isaga u cabbayo marka uu dhammeeyo xataa dembi dhaaf buu ilaahay siinaya subxaanahu wa tacaala ilaahayna uu ka raali noqonaya. bal fiirsada adoo wax cabbay ama meel cabbay oo sidaasi naftaada ee ku oonbaxday oo alxamdulilah yidhi haddana ilaahay raalli buu kaaga sii noqonaya. can anas ibni malik allahu tacaala canhu waardaah suubanaha alayhi wasalam waxa uu leeyahay ina allaha alla weyne la yardaa wuxuu ka raali noqdaa can ilcabdi addoonka an ya'kula alaklata inuu intuu wax cuno fayaxmadahu calayha alxamdu lilah u yidhaahdo ow yashraba uu cabo asharbata cabitaan fayaxmadahu calayha oo haddana alxamdu lilah yidhahdo. hadda bal fiiri waxbaad cuntay ama cabtay alxamdu lilah baad tidhi ilaah baa raalli kaa noqday maxaa ka fiican? marka yaan la iloobin cabitaanka iyo cunnada iyo waxyaabaha isnaaga ah qofka markuu cunayo ama cabbayo inuu rabbi weyne subxaanahu wa tacaala uu ku mahdiyo. baabkeena xadiidkaasa u dambeeyey waxaana inoogu xigi doona aladab maca alwaalidayn waalidka qaabkee loola dhaqmaa iyo aadaabta islaamka u dejiyey. marka insha allah maanta intaasa kusoo gabagabayna hadduu ilah raado casharkeenana kulle waa inaan hadda joojino inta ramadaanka laga baxayo maadaama ramadaankii uu soo dhow yahay haddii wax waqti ah insha allahu tacala walaalaha soo habeeyaan wixii ramadaan iyo axkaamtiisii aadaabtiisii iyo khasaa'istiisa ku saabsan ayaan geli doonaa insha allahu tacaala wajazakum allah